aabo ciidamadaada amar ku sii seefaha waa inay dhulka dhigaan war seefaha iska dhiga albaabka fura hogaamiye xaggee ka keentay awoodda qof xabsiga ku xihan inta u tagtid inaad kala soo baxda kadibna adiga aad waraysi ka qaaddo maxay tahay sababta ku geysay xabsiga dhexdiisa oo aad adiga rabtay wiilkaas inaad ku samaysay ii sheeg meeshan aniga ayaa mas-uulka hadda kadibna hubkao dhan waad dhigaysaan idinka oo bilaa huba ayaad magaalada joogaysaan mas-uuliyaddiinina aniga ayaa qaadi doona tillaabo qaldan haddii aad samaysaanna waxa ballanigu ah inaan qoorta idinka wada gooyo si aad u wada dhan tihiin aabo marwe ibligaad aabbaha waa inaad qolkiisii geysaa cabdiraxmaan amuur iyo ciidamadooda hubkooda waa inaad u xafiddaa meel u dhigtaa waaya mudan amarkaaga jiro baamse ninkii jaariya xabsiga iga soo saar waxaan rabaa inaan waraysto oo su'aalo weydiiyo amarkaagaa jira hogaamiye musalsalkani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable tv wiilkayga kuntas aabbaha xumaanku muusan xirin adiguu ku badbaadinayay hadda waa kan xaggeeda aadday ilaahu garabna sii wiilashayda kaalaybal ma timaadeen shaafici sidee tahay maxay tahay dhaawacan ku soo gaarina ayay waa dhaawac yar ha ka welwelin adiga marka ugaarsi ayaan aaday walaalkayna aniguu isoo raacay kadibna tuugaana aragtoo weerar nagu soo qaaday walaalkeenna saas ayuu dhaawacan ku soo gaaray cismaan adiga kaale maxaad ugaarta u aadeen walaalkaa dhib ka soo gaarin adigaa sababuu leh qaladkao dhan adiga ma lihid anigaa qaladka iskale hadda kadib tallaabo walbaad qaadaysa waa inaan indhaha kuugu haya adiga hadduu ay fahamta soo maaha ma soo geli karaa soo gal marwo waxaa lii soo sheegay wiilkaaga gunduus xabsiga inuu ka baxsaday wuu baxsaday siduu ku baxsaday xagguusa aadi karaa ma naqaan aniga meeshuu aaday laakiin waxaa ogahay inuu baxsadoo keliya walaalkii waxaa laga yaabaa xabsiga micno darro inuusan uga fakanin uu rabay annaga inuuna badbaadiyo ilaahay waxaan ka baryayaa meesha annaga dagaalka nagu qabsaday inuusan tegin walaalkay yaa allah rabbi oo raxmaano ilaahu wiilkayga ii badbaadi marwa irena sharafoon ayay noo tahay maadaamaad soo booqto magaalada sagood wiigiis aniga arrimo muhiim ayaa halkan u imaaday maxay yihiin arrimaha muhiimka kunduus ayaan u imaaday
waxaan maqlay inuu xidhan yahay sidaa darteed ayaa halkaa u imaaday. haa waa runtaa waa la xiray haa haddana wuu baxsaday uu baxsada ah. haa mudan artul intuu ku maqnaa shaafici iyo ismaan raadintooda gunduus xabsiga wuu ka baxsaday magaaladana way qasan tahay hadda maxay tahay sababta gunduus aad u raadinayso weliba halkan aad u timiday waa saaxiibkayga yaraanta inuu xidhan yahay markana maqlana waxaan rabay inaan soo booqdo mikiis adiga howshaada iska wado. intaada gunduus arag hadduu mudano aarti ku arka waran soo baxar ma gelayno. waxay ahaataba aniga halkan kama tegaayo waxaan caddaynayaa gunduus wax dembiya inuusan lahayn lagama yaabo inaad meeshan ka tago.